بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan soo gaarnay suuratu dukhaan. suuratu dukhaan waa suura makiya, waxay soo degatay hijiradii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka hor. waxay ka mid tahay suuradaha xuruuful muqataca ku bilowda, xuruufta aan macnaha lahayn ku bilowda ayay ka mid tahay. waxayna ka hadlaysaa qiyaamada iyo saacadda qiyaama. waxaa kale ka hadlaysaa risaalada ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la soo diray. ahlu naarkay ka hadlaysaa, waxay ka hadlaysaa dadka ahlu jannahana way ka hadlaysaa. bismi illaahi araxmaani araxiim. bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa suuradda. allihii arraxmaani naxariista ku tilmaanaa, allihii arraxiimi ee khalqigiisa u naxariisanayey. xaamiim. allahu aclam bimuraadihi bidalik. ilaahay baa garanaya wax uula jeedo. walkitaabi kitaabkii ayaan ku dhaartay, kitaabkii almubiini ee caddaa ee wax walba kala cadaynayey. innaa annaga anzalnaahu soo dejinnay qur'aanka fii leylatin habeen dhexdii ayaan soo dejinnay, habeenkaasoo mubaarakatin ama leyladaasoo mubaarakatin la barakeeyey. waa leylatu lqadri, waa habeenkii qur-aanka degitaankiisa la bilaabay. innaa anzalnaahu fii leylati lqadri bay la mid tahay. innaa annagu kunnaa waxaan ahayn mundiriina kuwo u diga addoommada, oo rususha ayaa loo soo dirayay, rusushuna way u digayeen. fiihaa habeenka ama leylada dhexdeeda ayaa yufraqu la kala geeyaa oo la kala bixiyaa kullu amrin arrin kasta, arrinkaasoo xakiimin xikmad u saaxiib ah. wixii dhimanaya, wixii noolaanaya, habeenkaasaa la kala xukumaya. ilaahay wuxuu inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala suuratu lqadar, tanazzalu lmalaa'ikatu waaruuxu fiiha biidni rabbihim min kulli amrin salaamun. waa ku ilaahay lahaa subxaanahu wa tacaala. amran xaal u yahay arrinkaasoo min cindina agtanada ka ahaaday. arrinkaasi maxaa yeelay innaa annagu kunnaa waxaan ahayn mursiliina kuwa soo dira rususha oo dadka u soo dira. raxmatan naxariis daraaddeed ayaan u soo dirnaa, oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay. raxmatan naxariis daraaddeed ayaa rususha loo soo diray oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay nebi maxamedow. maxaa yeelay innahu alle huwa alle assamiicu allaha maqalka badan weeye, ee maqla wax kasta, alcaliimu ee cilmiga badan ee wax walba og. rabbi asamaawaati cirarka rabbiga iskale weeye, waalardi dhulka rabbiga iskale weeye, iyo wamaa baynahumaa labadooda inta u dhaxaysa. in kuntum haddaad tihiin muuqiniina kuwa yaqiininaya wax oo xaqa yaqiininaya. laa ilaaha alla xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alla mooyaane. yuxyi isagaa nooleeya ciddii noolaanaysa, wa yumiitu isagaa dila ciddii dhimanaysana. wamaa yuhlikunaa ila dahru shee ka soconaysa ma aha. huwa alle rabbukum rabbigiin weeye, wa rabbu aabaa'ikum iyo aabbayaashiin iyo awowyaashiin rabbigooda weeye. aabbayaashii alawaliina ee horreeyey, awowyaashaa laga wadaa. bal iskaba dhaafee hum ayagu fii shaki dhexdii xaal ay ku sugan yihiin, yalcabuuna way iska ciyaarayaan. fartaqib nebi maxamedow, sug oo koro yowma maalin ta'tii ay imanaysa assamaa'u samadii bidukhaanin qiiqna ay la imanayso. qiiqaasoo mubiinin cad, calaamadaha saacadda ee sagaalka abuu ka mid yahay. qiiqaasoo yaqshaa daboolaya annaasa dadka, oo dabool iyo mugdi ka dhigaya markay qiiqaas. haadaa fa yuqaalu waxaa loo dhihi haadaa kani cadaabun cadaab weeye, cadaabkaasoo aliimun xanuun kulul. yaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa rabbiganow ikshif fayd cannaa xagganaga alcadaaba cadaabka ilaahow ka fayd. maxaa yeelay innaa annagu mu'minuuna kuwa rumaynaya ayaan nahay xaqa ilaahu naga fayd. marka way dhacday buu leeyahy cabdullahi ibnu mascuudo, wuxuu leeyahay calaamadaha dhacay ee qiyaamada ayay ka mid tahay ayuu leeyahay. cabdullahi ibnu cabbaasna ma dhicin buu leeyahay. annaa sideebay lahum ayaga ugu sugnaatay addikraa waana qaadashadu, walxaal qad jaa'ahum uu u yimid rasuulkaasoo mubiinun cad, oo macnaha wax walba caddaynaya. uma intaa kadib tawallow way ka jeedsadeen canhu xaggiisa, oo waqaaluu waxay dhaheen huwa isagu mucallamun mid wax la baray weeye, majnuunun oo haddana waalan. saasay dhaheen. see marka qiyaamada u anfacaysa iyo cadaabku markuu kusoo dego see u anfacaysaa waanada ay waana qaateeni. innaa annagu kaashifu lcadaabi, cadaabka kuwo kor yeelaya ayaan nahay, qaliilan wax yar. maxaa yeelay innakum, saasuu ilaahay leeyahay, innaa annagu kaashifu lcadaabi, cadaabka kuwo faydaya ayaan nahay, qaliilan wax yar. oo culummadu waxay leeyihin waa shardi, oo shardina waxaa la yidhaahdaa laa yataxaqaqu minhu athubuutu wala alcadam. marka in cadaabka laga kor yeelaa inay macnaa aayaddu cabiritaanka ay cabirtay inay suurtagal tahay oo dhacayso kama dhigna,
waxaa laga yaabaa shay in la cabiro oo laakiin uuna dhacaynin ayaa laga yaabaa. aayado badan oo qur-aanka saa ku yimidna way jiraa. innakum idinku caa'iduuna kuwa noqonaya oo qubxigi iyo xumaanta ku noqonaya ayaa tihiin markii la idinka kor yeelo cadaabkii. oo waxa weeyaan walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu. yowma maalin ka sheekay nebi maxamedow nabtishu aan qabanayno albadshata qabashadii alkubraa ee ugu weyneed qabashooyinka waa qiyaamade. inna anagu muntaqimuuna kuwa ka aargudanaya ayaa nahay gaalada. walaqad fatannaa xaqiiqee waan imtixaanay qablahum ayaga hortood qowma fircawna fircoon qoomkiisii. qablahum reer quraysh hortood qowma fircawna fircoon qoomkiisii yaan imtixaanay. oo wajaa'ahum waxaa u yimid rasuulun rasuulkaasoo kariimun wanaagsan waa nebi muuse. nebiyullaahi haaruunna waa la socday. wuxuuna ku yidhi an adduu iisoo dhiiba oo iisoo guta ilaya xaggayga cibaadallaahi ilaahay addoommadiisa reer bani israa'iil ah. qolada uu saa ku leeyahayna waa nimankii qibdiyiinta ahaa ee fircoon ka dhashay weeye ee gumaysan jiray reer bani israa'iil. maxaa yeelay innii anigu lakum idinka waxaan idin ahay rasuul laydiin soo diray amiinun oo haddana aamin ah oon qofna dhibaato u geysanaynin. wallaahu aclam wa axkam.